deertii hadda biyaha badneed oo la soo dhaafay qiimaha waxyaabaha laga goostay beeraha Wajeer ka soo baxay waxay gaartay 2 bilyan iyo 300 milyan 2 bilyan iyo 300 milyan 2 bilyan iyo 300 milyan waxay u badan tahay Wajeer East oo ah 4 meelkan iyo Wajeer North and Wajeer South iyo Wajeer West waa dhulka aan leenahay waa dhul beeraad oo hadii effort yar la geliyo kiiba sanad walba amase mar walba oo roobda laga soo saari kara runtii 1 bilyan kaligeed oo macnaha Wajeer West gooni iyo Wajeer South gooni laakiin dibkana haysto waxa weeyaan reer miyigi ayaa u cabsi qabo dhulkan liiskood oodanayo qof walba oodayo meel ay xoolo ku daajiyaan ay weydoon marka wasiirka beeraha meeshana jooga waxaan rabnaa in la kala ilaaliyo beeralayda iyo xoolo dhaqatada waxa lagu kala ilaalin karaa meelaha beeraha laga sameeynayo aysan noqonin nin walba inaad iska ooto dhulkiye hal beer weyn hal la sameeyo dadkina loo kala gooyo aan marka ceelashii aan ka dhaxqodna aan u sameeyna maxaa la yiraahdaa story baqari hal beer oo laga sameeyay Wajeer North meel yiraahdo Korondila waxa laga soo saaray 20,000 oo bag oo masaga galay haddana waxaan ka codsanay madaxweynaha Kenya in galay diideed uu naga gato wasiirka talaadada imaana cereal board lagu qasbay galay diideed inay gadato qiimaheedu waxa way 120 milyan lacagta bangiga laga raadina waxa ku jirta oo laga soo saari karaa dhulkan ilayna siiyay xoolihiina u baahanay laakiin waa laga leexin karaa haddii dhulku in la iska oodan lahaa hal meel beer weyn laga sameeyo anagana aan taageerno beertan inuu shakhsi lahaado ma ahina ay group lahaadaan oon suuqa ku xirno waa laga faa'iidi karaa marka dadka lacagta le naftinkooda waxaan rabnaa in ay bulshada gacanta wax laga wada siin kare ay waxyaabaas ku taageeraan oo gurbihi la caawiyo dawladana oo caawinayna insha Allah ta'ala haddii aad ku nooshahay magaalada Nairobi ma ogtahay shirkadda Faras Taxi inay macaamiisheeda siiso qiimo dhimis aad u ballaaran sidoo kale shirkadda Faras Taxi waxa ay ku soo celinaysaa 10% lacagtaada trip walba aad qaadato lacagtaasi oo ah Faras Miles waxa aad ka dhigan kartaa M-Pesa kaarka ku hadalka ama internet haddaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka